Puntland ayaa beenisay hadal ka soo yeeray wasiirkii hore ee maaliyadda ee maamulkaasi. Wariyaheena Asma Maxamed ayaa idin falaqeynaysa. Maamulka Puntland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalkii wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal kaas oo ahaa in doorashooyinka qof iyo codka lagu koobay 12 degmo. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdiweli Mire Xirsi ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin wararka ku saabsan in 12 degmo lagu koobay doorashooyinka qof iyo codka. Wasiir Cabdiweli Mire ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay mas'uul ka tahay barnaamijkan isla markaana aysan macquul ahayn in lagu koobo 12 degmo doorashooyinka. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa beeniyay in wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal iyo madaxweyne Dani ay isku khilaafeen arrinka. walaalkay Xasan Shire oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda ayaan doorashada laba qodob uu ka yiri hal qodob ka oranaya. waxaan leeyahay qodobka 12 degmo ayaa madaxweynaha isku khilaafnay waxba kama jiraan. arrinka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dawladda uga mas'uul ah annagana joogna 12 degmana macquul maaha 12 degmana madaxweynuhu ma sheegin waayo annaga dugmiitigii hayna wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyaduna iskuma dhaxlabna wasaaradda maaliyadda ayuu walaalkeen maamulayay wixii uu ka soo qabtay ee wanaag khayr Allah ku siiyo wixii uu qalday isaga dadka cafis ka weydiistay inana waxaan leenahay hal cafiyo laakiin waxaan inii sheegayaa heer Puntland inaan 12 degman lagu galeyn inaan 15 lagu galeyn inaan 16 lagu galeyn inaan 20 lagu galeyn ay heer Puntland ay galayaan doorashada degmooyinka wasaaraduna diyaarisay tibagna ogtahay 12 deg wixii kale ay madaxweynaha iyo isku khilaafeen oo sheegay anigu shaqo kuma lihi laakiin wuxuu wasaaradda ka sheegay ee doorashada gudoomiye degmooyinka lagu galayay waxba kama jiraan.